Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Qayrta sharafta badan kusoo dhawaada somalibusiness.info. halkan maanta waxaan idinkugu hayaa sheeko aad u macaan badan. sheekadani aad ka heli doontaan si wanaagsan waa sida soo socota. sidee buu u shaqeeyaa telefoonkaaga ama mobilkaaga? inteena ugu badan telefoonka ama mobilada waa qayb ka mid ah nolosheena, laakiin waxaan hubaa inaad maskaxdaada ku mashquulsan tahay had iyo jeer. waxaa ku dhaca su'aalaha sida telefoonka ama mobiladu u waco iyo sababta ay jiil kala duwan oo isgaarsiinta mobilada ah aan u baari karno. tiknoolajiyada ka dambaysa isgaarsiinta mobilada. markii aad ku hadasho telefoonkaaga, codkaaga waxaa qaadaya microphone-ka wuxuu codkaaga u bedelaa astaan digital ah iyadoo gacan ka helaysa dareemayaasha MEMS. waxaan arkaa signalka digitalka ah oo ku jira codkaaga qaab zeros iyo kuwa anteeno gudaheeda. telefoonka ayaa helaya kuwan iyo kuwa kale, waxayna u gudbisaa qaab mawjadaha electromagnetic. hirarka electromagnetic waxay gudbiyaan zeros iyo kuwa iyagoo bedelaya astaamaha mawjadaha sida marxalada cod weyne ama isku geynta. kuwan tusaale ahaan marka loo eego soo noqnoqda eber iyo hal waxaa lagu kala qaadaa iyadoo loo isticmaalayo adeegyo hoose iyo sareba sida ay u kala horeeyaan. marka haddii aad heli karto hab aad ugu gudbiso mawjadahaas korontada ku shaqeeya, saaxiibada telefoonkaaga awood u yeelan kara in la sameeyo wicitaan. hase yeeshee mawjadaha koronto dhaliyaasha ayaa awoodi kara inay safraan masaafooyin dhaadheer oo ay lumiyaan awoodda, sababtuna tahay jiritaanka walxaha jiray ee qalabka korontada iyo qaar ka mid ah arrimaha deegaanka. haddii aysan jirin arrimo noocaas ah, marka hirarka koronto wadayaashu ma sii socon doonaan weligood, sababtuna tahay qaab dhismeedka meeraha ee dhulka. si loogu gudbo arrimahan, munaaradaha wareega ayaa lagu soo bandhigay iyadoo la adeegsanayo fikradda tiknoolajiyada gacanta ee mobilada. juqraafi ahaan waxay u qaybsan tahay unugyada hexagonal, iyada oo unug waliba oo leeyahay munaarad iyo xirmooyin soo noqnoqda. guud ahaan dhismayaashaas unugyada waxay ku xiran yihiin fiilooyin ama fiilooyinka fiberka ah ee si gaar ah. fiilooyinka fiberka ah ayaa la dhigay dhulka hoostiisa ama batweynta si ay u bixiyaan isku xirnaan heer qaran ama caalami ah. korontada ee ay soo saarto telefoonkaaga ayaa laga soo qaadaa munaaradda qolkaaga, waxayna u bedelaysaa iftiinka isdaba jooga ah ee iftiimaya. iftiinkaas xawaaraha ayaa loo qaadaa sanduuqa transceiver salka ku yaala saldhigga munaaradda ee lagu talagalay hagitaan dheeri ah oo ku saabsan hagidda codkaaga ayaa loo rogayaa dhinaca munaaradda oo u socota. markii loo helo culusyada ku yaal halka ay ku socota hirarka korontada elektarooniga ah ayaa telefoonka saaxiibka kadib wuxuu helayaa signalka calaamadan oo maraya nidaam dib u dhac ah iyo saaxiibka ayaa maqlaya codkaaga. saa darteed waa run in isgaarsiinta mobilada gebi ahaanba ma ahan aaladda wireless-ka ee waxay u isticmaalaan dhexdhexaadka. taasi waa sida isgaarsiinta mobilada loo fuliyo. si kastaba ahaatee, waxaa jira arrin weyn oo aan si ula kac ah uga tagnay isgaarsiinta. telefoonka gacanta ee aan awood lahayn ayaa keliya guuleysta markii munaaradda u gudbiya signalada saaxiibada asxaabtaada. laakiin sidee bay munaaraddu u og tahay meesha aaga ee saaxiibkaagu ku yaalo? si fiican hawshan qolka muraayadda unugu wuxuu ku helaa caawinaad loo yaqaan xarunta wareejinta mobilada MFC. waa udub dhexaadka
koox munaaradaha wareega. Ka hor intaadan dhaqaaqin, bal aan u sharaxno macluumaad dheeri ah oo ku saabsan MSC. Markii aad iibsanayso kaarka SIM, dhammaan rukumada macluumaadka wuxuu ku diiwaan gashan yahay MSC. Cayman MSC waxay noqon doontaa hoygaaga. Hoyga MSC wuxuu keenayaa macluumaadka sida qorshooyinka adeega, meesha aad hadda joogto, iyo heerkaaga waxqabadka. Haddii aad ku guurto meel kala baxsan, xiddiga gurigaaga MSC-da cusub ee MSC ee adiga ku adeegta ayaa la og yahay sidii ajnabi. MSC marka aad gasho gobol MSC oo ajnabi ah, waxay la xiriirtaa gurigaaga MSC gaagaaban. Gurigaaga MSC had iyo jeer waa ogtahay meesha loo yaqaan MSC ee aad ku fahmi karto goobta cunuga macaamilku ku yaal aaga MSC ayaa MSC adeegsato farsamooyin dhowr ah. Jidka waa in la cusboonaysiiyo meesha macaamilku ku sugan yahay muddo cayiman kadib markii telefoonka uu ku gudbo lambaro horey loo sii tilmaamaya oo munaasabada. Goobta ayaa mar kale la sameeyaa mid ugu dambeeya ee kuwan waa markii telefoonka la shidayo. Aan isku dayno inaan fahanno dhammaan hanankan oo tusaale loo soo qaadan karo. Emma waxay rabtaa inay wacdo John. Markay Emma garaacdo lambarka John ee dalabka wicitaanka, wuxuu yimaadaa guriga Emma. MSC markii uu helo lambarka John, codsigiisa waxaa loo gudbin doonaa guriga John. MSC haddii John's MSC wuxuu hubiyaa MSC-da hadda jirta. Haddii John uu ku sugan yahay gurigiisa, MSC codsiga wicitaankiisa si dhaqso leh ayaa loogu diraa doonaa meesha uu hadda ku yaal, waxayna hubinaysaa in John uu ku howlan yahay wicitaan kale ama haddii moobilkiisa la damiyay. Haddii wax walba ay wanaagsan yihiin, telefoonka John wicitaankiisuna uu ku xiran doono. Si kastaba ha ahaatee, haddii John uusan ku sugnayn gurigiisa MSC wuxuu si fudud ugu gudbiyaa codsiyada wicitaanka shisheeyaha MSC ee ajnabiga ah. MSC waxay raaci doontaa laba farsamooyin helitaan oo fara badan oo ah farsamadii ugu horeysay oo noocyo kala duwan oo jeermisyo ah ayaa si taxadar leh loogu qoondeeyay dhismayaasha unugyada kala duwan ee farsamooyinka. Booska isugeynta ayaa si hufan loogu qaybiyaa dhammaan adeegsadayaasha firfircoon ee aaga unugyada. Hadda su'aasha ugu weyn, maxaa u jiri kara jil kala duwan oo tiknoolajiyada telefoonka gacanta 1 gram asal ahaan loo ogol yahay dadka isticmaala qaadaan telefoon aan lahayn fiber ku xirneed, laakiin 1 gram 1G ayaa ka soo gaartay labo dhibaato oo waaweyn. Dhibaatada ugu horeysa waxay ahayd in gudbinta wireless-ka ay ku jirtay astaamaha analooga ah ayaa si fudud loogu bedelaa dabadeed, sidaa darteed waxay bixisay tayada cod xumo iyo amni xumo. Dhibaatada labaad waxay ahayd in ay adeegsato farsamooyin kala duwan oo kala duwanaansho noocyo badan ah, kaasoo oo adeegsaday xajmiga habboonayn. Sababahan ayaa wadada labaad u dhigay jilka isgaarsiinta mobilada. 2G ayaa adeegsaday habraaci hore ee lagu sharxay si loo helo telefoonka John, ka dibna waxay dhisi doontaa wicitaanka. Hadda aan ka wada hadalno sababta ay inta jeer ee noocyada kala duwan ay aad ugu muhiimsan yihiin isgaarsiinta telefoonka gacantu si loogu wareejiyo zeros iyo kuwa ku jira isgaarsiinta digitalka ah ee macaamiil kasta loo qoondeeyay tiro baaxad leh. Hase yeeshee, muuqaalka istaba jooga ah ee laga helo karo isgaarsiinta telefoon gacantu aad ayuu u xadidan yahay, oo waxaa jira balaayiin macaamiil ah oo arrintan sidaa tahay la saaray iyadoo laga sheekeynayo laba tiknoolajiyo ah, 1 qayb oo wareejin iyo 2 farsamooyin helitaan oo fara badan oo ah
farsamadii ugu horeysay oo noocyo kala duwan oo jeermisyo ah ayaa si taxadar leh loogu qoondeeyay dhismayaasha unugyada kala duwan ee farsamooyinka booska isugeynta ayaa si hufan loogu qaybiyaa dhammaan adeegyadaas si hufan loogu qaybiyaa dhammaan adeegsadayaasha firfircoon ee aaga unugyada. Hadda su'aasha ugu weyn, maxaa u jiri kara jil kala duwan oo tiknoolajiyada telefoonka gacanta 1 gram asal ahaan loo ogol yahay dadka isticmaala qaadaan telefoon aan lahayn fiiro ku xirneed, laakiin 1 gram 1G ayaa ka soo gaartay 2 dhibaato oo waaweyn. Dhibaatada ugu horeysa waxay ahayd in gudbinta wireless-ka ay ku jirtay astaamaha analooga ah ayaa si fudud loogu bedelaa dabadeed, sidaa darteed waxay bixisay tayada cod xumo iyo amni xumo. Dhibaatada labaad waxay ahayd in ay adeegsato farsamooyin kala duwan oo kala duwanaansho noocyo badan ah, kaasoo oo adeegsaday xajmiga habboonayn. Sababahan ayaa wadada labaad u dhigay wadada labaad jilka isgaarsiinta mobilada 2G ayaa adeegsaday tiknoolajiyada helitaanka badan ee digital ah NAMES TDMA ama tiknoolajiyada CDMA. Jilka labaad waxay sidoo kale soo bandhigeen adeeg macluumaadka aan SMS ah iyo tiknoolajiyada internetka ee 3G. Tiknoolajiyada ayaa diiradda lagu saaray bixinta xawaare sare ee xawaalada xogta. Waxay adeegsatay farsamooyin helitaan badan oo CD ah oo ay weheliso kordhinta xawaaraha si loo gaaro tan xawaaraha 3G ee 2 Mbps ayaa u ogolaatay wareejinta xogta loogu talagalay adeegsiga sida GPS-yada, codka wicitaanka iyo wixii la mid ah. 3G waxay ahayd talaabo weyn oo isbedel ah ee telefishanka asaasiga ah ee soo socda ayaa yimid 4G kaasoo gaaray xawaaraha 20 ilaa 100 Mbps. Tani waxay ka habbooneyd aflaamta sare iyo telefishankan xawaaraha sareeya ayaa suurtogal ka dhigay sababtoo ah tiknoolajiyada badan oo helitaan badan iyo tiknoolajiyada mobilka ah waxaan isticmaalaa anteenooyin badan oo kala wareegaya gudaha telefoon gacantu iyo munaaradaha. Jilka dambe ee isgaarsiinta telefoonka gacanka 5G si dhaqso ah ayaa loo isticmaali doonaa. MIMO kordhay tiknoolajiyada iyo heerarka millimeterka waxay bixin doontaa isku xirnaan aan kala lahayn oo lagu taageerayo internetka waxyaabaha sida baabuurta darawal la'aanta ah iyo guryaha caqliga leh. Haddii aad jeceshahay inaad baratid sida muraayad daawashadu u shaqeyso, fadlan fiiri fiidiyogan. Fadlan ha ilaawin inaad subscribe dhahdo qorto si aad u barato injineernimada iyo taageerada aad ka heshid Somali Business waa mid aad u qiimo badan. Mahadsanid.